mahadsanid Nabi Yusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay in nicmadooyinka iyo waxyaabaha wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu isiiyay aan qarsado sababtoo ah nicmad walba waxay leedahay waxay tahay waa xaasid adigana aabahaaga wuxuu ku yiri waxay tahay ha u sheegin riyadaada walaalahaaga mahadsanid Nabi Yusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay in dadka qaarkood aysan kuugu nacaynin xumaantaada iyo ceebaha laakiin ay kuugu nacayaan wanaagaaga iyo quruxdaada sababtoo ah walaalahaaga adiga Nabi Yusufow maysan ku nicin ilaa jacaylka badan uu ku jeclaa aabahaaga mahadsanid Nabi Yusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay in marna aanan isbedelin waqtiga si walbo ay isku badbadasho aniga inaanan isbedelin sababtoo ah adiga xabsiga markaa ku jirtay waxaad ahayd qof wanaagsan markaad ka soo baxdayna waxaad ahayd waxay tahay qof wanaagsan mahadsanid Nabi Yusuf sababtoo ah qisadaada waxaan ka bartay waxay tahay in mararka qaarkiis ay ku dhibaataynayaan ay ku xanuujinayaan dad aadan jeclaan lahayn inaad aragtid ayagoo dhibaataysan adiga markaad ka badbaaday dhibaatooyinka dadka oo dhan maadan ka badbaadin dhibaatada walaalahaaga mahadsanid Nabi Yusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay in dhibaatadayda iyo murugteeda aanan u sheegan illa Ilaahay subhanahu wa ta'ala maahana inma ashku bathi wa huzni ila Allah mahadsanid Nabi Yusuf sababtoo ah qisadaada ayaa waxaan ka bartay waxay tahay inaan cafiyo dadka anigoo awooda inaan ka aarsado adiga walaalahaaga markay ku yimaadeen adigoo boqor ah waxaad dhahday waxay tahay waan idin cafiyay ayaad ku dhahday maxaa ka qowx badan Nabi Yusuf taa awgeeda ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu tilmaamay waxay tahay qisada Nabi Yusuf ahsan alqasas mar walba aan aqiyo waxaan ka bartaa waxay tahay waxyaabo aad iyo aad badan aan aqina insha Allah ta'ala aan ku dadabno qisada iyo suurada quruxda badan macaanka badan suurada Yusuf